بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. runtii waxaan aad uga xumahay xaaladda dalka iyo sida wax u jiraan. waxayna igu haysaa sida dad badan oo Soomaaliya iyo dad kale oo jecel Soomaalida ay wal ugu hayso. waa la wada og yahay xaaladda dalku soo maray iyo meesha la soo gaaray. marka la fiiriyo maanta waxa aan haysano waxa waajib nagu ah dhamaanteennaba inaan ku far adeegno oo aan ilaalino nabadda iyo xasiloonida iyo horu socodka isla markaasna aan ku qanacno qof la arkaba meesha uu joogo iyo waxa mataqaanaa maanta ummadda uu haayo lana ilaaliyo sharciga iyo kala dambeynta dibna aan loo celin dalka mas'uuliyad weyn aan saaran dhamaanteenba. dalkan waxaa ogtihiin in meeshan la soo gaaro laftigeeda dhiig badanaa u baxay, xoolo badanaa u baxay, waqti badanaa la soo geliyey. marka inaan caradu naga tan badin oo aan xigmad iyo waxgaradnimo dheeraada la nimaado si marxalad adag dalka aan uga bixino aan fiirinana shacabka Soomaaliyeed maanta waxa ay naga filayaan iyo adduunka laftigiisu maanta waxa uu naga filaayo iyo xaaladeena meesha ay joogto iyo meesha aan doonayno dalku inuu gaaro anagoo ka fikirayna inaan isticmaalno mataqaanaa xigmad ilaahayna u laabano caraduna ayna naga tan badin aan u turno ummadda khilaafkana haddii aan isfaham lagu dhamay karin sharciga la dhigtay ee yaalla ee la isku doortay ee maanta Soomaali dowladnimadeeda lagu hantay adduunkana noo ixtiraafay in asagaas si wanaagsan oo aan mugdi lahayn oo aan shaki lahayn oo aan biri ceeb keenaynin lagu kala baxo lagana fikiro waxa la wixii mugdi keeni kara inay qarankan dhibaato ku yihiin sumcadan ay dhaawacayaan taariikh madow qofka ka shaqeynaya ay u abuuri karaan in aad iyo aad looga fikiro aan laga fikirin maanta kaliya iyo marxaladda la joogo laga fikiro mustaqbalka laga fikiro